inay u howlgalaan qodobadii ku yaalay siday dhaqangal u noqon lahaayeen. waxaan rajaynayaa sida uu u qeexay xaaladda waddanka uu ku jiro, dhinac amni, dhinac siyaasadeed, dhinac dhaqaale, iyo sida lama huraan ay u tahay ama baahida loogu qabo in marxaladdan la helo hannaan doorasho oo lagu midaysan yahay oo hore u sii wada geedi socodkii dowlad dhiska Soomaaliyeed. dabcan baqdin baa la qabaa, sababta loo baqaayana waxa weeye waa ficiladii la soo dhaafay oo la arkay oo u muuqanaya kuwo aanan u socon waddada saxda ah. haddii dalku hannaan fiican ku socdo, waddo wanaagsan ku socdo, baahida golahan loo qabtana ma dhalateen, shirweynahanna lama unkeen. inay baahi jirto waxaa daliil u ah tallaabooyinka shaqo ee muddadii u dambaysay Soomaaliya ka socday oo saldhig ay u ahaayeen madasha samata bixinta, maantana gaaray golaha mustaqbalka Soomaaliyeed, kuna soo biireen bulshada qaybaheeda kala duwan oo shirweynahii koowaad maanta hal ku qabsaday. qorshaa la dhigtay, road map cad baa halka laga sheegay oo waqtiyeysan oo taariikhaysan. waxaan rajaynayaa inuu u noqdo badbaado marxaladdan ee dalkeennu marayo xaqiiqdii oo ah marxalad xasaasi ah oo tashi badan u baahan. waxaan rajaynayaa madaxda dowladda federaalka oo u horeeya madaxweynaha dowladda federaalka inuu baaqa hal ka soo baxay si niyadsan uu abbaari doono. waa xogagaal, waa maraaxil uu soo maray, waa mid uu ka soo taliyey, waa mid uu dareenkeeda qabo. waxaan rajaynayaa cid kasta oo maanta madashan ka maqan oo Soomaaliyeed, hadday tahay mid siyaasadeed, xil siyaasadeed, hadduu yahay xil dhaqan, hadduu yahay xil dhinaca bulshada ah oo ugu horreysa culummadu, waxay anigu farriintayda tahay in loo istaago in geedi socodkan muddada aynu ku soo jirnay uusan qalluuc naga gelin. wixii khaldamay wax tagay tiigsimaad male baa la yidhi, wax way naga khaldan yihiin, laakiin waxaynu u baahannahay inay saxsaxno. qodobka warmartiyeedka ugu muhiimsanaa waxa weeye ishaarada ama sida loo soo bandhigay xeerarkii iyo shuruucdii dalka lahaa inuu dhaawac gaaray. bulsho meel ku nool waxaa kala haga shuruuc iyo dastuur. hadduu dhaawac galana waxa weeye waa wax aan in laga kabtay adagta. waxaan u rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay u istaagaan dalkan samata bixintiisa, ku hagidda dariiqiisa. maalintii dastuurka lagu hamiyey in la baalmaro oo si kale loo dhigo waa maalintii la bannaystay wax walba oo sharci darro ah oo ay saldhig u tahay maanta ka dhacaysa dalkeenna. sharci darro siyaasadeed baa jirta, sharci darro maamul baa jirta, sharci darro maaliyadeed baa jirta. rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaaya ummadda Soomaaliyeed inuu dhabaha toosan uu ku hago. waxaan hadalkayga rabaa inaan halka ku soo gabagabeeyo, inaan halka baaq ugu diro una duceeyo ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee ummadda Soomaaliyeed ee leedahay heer federaal iyo heer state ee runtii howlaha adag iyo duruufaha adag ku shaqaynaya
khilaafaadka siyaasiga oo ku shaqaynaya oo aan rajaynayo inaysan ciidanka u fiicnayn inay dhagahooda maqlaan khilaafaad siyaasadeed maxaa yeelay mooralka ciidanka waxaa saldhig u ah midnimada ummadda iyo wadajirka dowladnimada waxaan rajaynayaa ciidamadaas inay u dulqaataan duruufaha adag ay ku jiraan cadowga ay la dagaalamayaan dadka ay u hiilinayaan oo ah dadkoodii wax kastoo ku soo gaarana inay u dulqaataan waa laga bixi doonaa haddii ilaahay idmo ugu dambayn waxaan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay iskaalmeeyaan duruufaha adag ee abaaraha jira waxaan rajaynayaa insha Allah inay isku gargaarno sida loo kala daran yahay oo loo kala jilicsan yahay inta dhiban waxaan u daynayaa madaxda iga dambaysa oo runtii aan ka sugayno in ay bixiyaan tilmaamaha ku habboon waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u cadeyno golaha mustaqbalka kaalinta ka filaysaan inuu gudan doono haddii Ilaahay idmo waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh